وتلامنتين أصحابتك كسر برامجكنا 1 by 1 oo noo qaadano wararka iyo warbixinada ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa wararka ugu dambeeyay ee kooxaha iyo sidoo kale kooxda Arsenal oo doonaysa in la soo wareegto ciyaartoy cusub oo ka ciyaara khadka dhexe halka ay ugu dambeysay xaaladda ciyaartoyga Gavi iyo kooxda Barcelona kooxda PSG oo doonaysa inay dib u cusboonaysiin ku sameyso kooxda iyo warar kale haddii aad ka heshin muuqaalka fadlan like saar subscribe na dhex channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe sidoo kale haddii aad jeceshahay inaad soo booqatid baraha kale aan ku leenahay baraha bulshada waxaad linkigeeda ku heli doontaa qaanada description-ka ugu horreyntii haddaynu ku bilowno kooxda Tottenham ayaa la sheegay inay doonayso weeraryahanka kooxda ay tartamaan ee Chelsea ciyaartoygaas oo Hakim Ziyech haddaba ciyaartoyga Hakim Ziyech ayaa la sheegay kooxda Tottenham inay doonayso sidoo kale sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Ingiriisku kooxda Tottenham ayaa doonaysa ciyaartoygan inay la wareegto sidoo kale kooxda Chelsea ayaa la filayaa ciyaartoygan inay ku fasaxi doonto haddii ay soo gaadhaan dalabyo kaasoo qiimahoodu uu gaaraya 20 milyan oo euro dhammaadka xilli ciyaareedkan haddaba kooxda Tottenham ayaa la sheegay inay doonayso inay soo xoojiso khadkeeda weerarka gaar ahaan garbaha maadaama hadda labada ciyaartoy ugu muhiimsan ee garbaha ay yihiin ciyaartoyga Son Heung-min iyo sidoo kale ciyaartoyga Dejan Kulusevski sidoo kale kooxda Tottenham ayaa doonaysa ciyaartoyga Hakim Ziyech inuu ka mid noqdo ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Tottenham ama ciyaartoyda garbaha ka ciyaara ama ay ku soo xoojiso kooxda iyaduna waxaa jirta ciyaartoyga Hakim Ziyech inay doonayaan kooxo kale oo ka mid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxaana kooxaha ka mid ah kooxda West Ham iyo sidoo kale kooxda Fulham balse kooxda Tottenham ayaa kooxda ugu muhiimsan ama sidoo kale kooxda ugu awoodda weyn ee doonaysa halka kooxda PSG ay ku fashilantay bishii January ciyaartoyga inay amaah kula wareegto ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan balse ciyaartoyga Hakim Ziyech ayaa la sheegay kooxda Tottenham inay tahay kooxda ugu muhiimsan ama kooxda ugu cadcad ee la wareegi karta ciyaartoyga Hakim Ziyech ayaan kooxda Chelsea u ciyaarin kadib kulankii ugu dambeeyay markuu ciyaartoygan u ciyaaray 26 bishii February xilligaas oo kooxda Chelsea ay 2-0 kaga badisay kooxda Tottenham haddaba ciyaartoygan ayaan ka mid ahayn ciyaartoydii loo soo dooran jiray liiska ciyaartoyda kooxda Chelsea ee ciyaaraysa kulamada ugu dambeeyay gaar ahaan 4 kulan ee ugu dambeeyay arrinkaas oo isku dayay ciyaartoygan inuu ka tago ama kooxda Chelsea uu ka baxo ayaa ciyaartoygan tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Chelsea xagaagii sanadii 2020 xilligaas oo kooxda Chelsea ay ciyaartoyga Hakim Ziyech kala soo wareegtay kooxda Ajax iyagoo ka bixiyay qiimo gaaraya 38 milyan oo euro ciyaartoygu waxa uu awooday kooxda Chelsea kulamada uu ciyaaray kuwaas oo ahaa 102 kulan oo uu ciyaaray kooxda Chelsea inuu kooxda u dhaliyo 14 gool sidoo kalena uu caawiyo 12 gool haddaba ciyaartoygan maadaama aanu ka mid ahayn ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Chelsea sidoo kale ciyaartoygan aanu ciyaarin kooxda labadii bilood ee ugu dambeeyay oo markii ugu dambeysay ciyaartoyga Hakim Ziyech uu ciyaaro kooxda Chelsea ay ahayd kulankii ay la ciyaareen kooxda Tottenham oo 2-0 kaga badiyeen 26 bishii February ama bishii labaad ee sanadda 2023 ciyaartoygan waxa uu isku diyaarinayay inuu ka tago kooxda Chelsea inkastoo bishii January ay ku fashilantay kooxda PSG inay amaah kula wareegto ciyaartoygan haddana hadda waxaa isku diyaarinaysa kooxda Tottenham inay ciyaartoygan la soo wareegto sidoo kale mas'uuliyiinta kooxda Chelsea ayaan diidi doonin ciyaartoyga Hakim Ziyech haddii laga soo gudbiyo dalab uu qiimihiisu gaadhayo 20 milyan oo euro oo arrinkaas ay suuragal tahay kooxda Tottenham ciyaartoygan inay ka bixiso qiimaha ah 20 milyan oo euro isla magaalada London kooxda Arsenal oo la sheegay inay baadigoob ugu jirto ciyaartoy khadka dhexe ka ciyaara sidoo kale ay soo xoojiso ciyaartoyda khadka dhexe ka ciyaara ayaa waxaa la sheegay kooxda Arsenal inay hadda doonayso ciyaartoyga khadka dhexe ugu ciyaara xulka qaranka Serbia iyo sidoo kale kooxda Lazio ee Sergej Milinkovic-Savic Arsenal ayaa la sheegay inay suuragal tahay inay la soo wareegto ciyaartoygan Sergej Milinkovic-Savic sidoo kale ciyaartoygan ay kooxdu isku day doonto inay la soo wareegto dhamaadka xilli ciyaareedkan haddaba ciyaartoyga Milinkovic-Savic ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan ama ciyaartoyda ugu cadcad khadka dhexe horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A haddaba ciyaartoygan ayaa hadda waxaa jira wadahadal u dhexeeya kooxdiisa Lazio iyo ciyaartoyga kaasoo ay doonayso kooxda Lazio ciyaartoyga Sergej Milinkovic-Savic inay u soo bandhigto heshiis kordhin balse kooxda Lazio ciyaartoygan haddii ay heshiis kordhin u sameyn waayaan ama sidoo kale wax saafgarad ah ay gaari waayaan labada dhinacba waxay ku qasbanaan doontaa kooxda Lazio inay fasaxdo ciyaartoyga Sergej Milinkovic-Savic xagaagan haddaba ciyaartoyga Savic ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii lala xiriirinayay kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ciyaartoygan oo jiray 20 sano ayaa waxaa si aad ah loola xiriirinayay kooxaha ugu waaweyn ee ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League sidoo kale sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Talyaanigu kooxda Arsenal ayaan ahayn kooxda kaliya ee ciyaartoygan doonaysa sidoo kale iyaguna waxaa jiray kooxo kale oo sanadadii ugu dambeeyay lala xiriirinayay ciyaartoyga Sergej Milinkovic-Savic waxaana kooxaha ka mid ahayd kooxda Manchester United
haddaba hadda kooxda Arsenal ayaa kooxda hogaaminaysa tartanka loogu jiro ciyaartoyga Sergej Milinkovic-Savic waxaana la filayaa ciyaartoygan inuu ka tago kooxda balse sida uu sheegay madaxweynaha kooxda waxaa ku adkaan doonta ciyaartoygan inay fasaxdo kooxda maadaama ciyaartoygan uu wali kula jiray heshiis kooxda inkastoo kooxda isku dayi doonto hadda inay heshiis kordhin u sameyso koox ciyaartoygan haddaba sidoo kale waxaa iyaguna jira ciyaartoy kale oo kooxda Arsenal kadib markii ay soo xoojisay kooxda ayna la soo wareegtay bishii January ciyaartoy ay kamid yihiin Jorginho, Trossard iyo sidoo kale ciyaartoyga Gabriel Jesus oo ay kala soo wareegtay kooxda Manchester City ayaa iyaguna waxaa jira inay doonayso kooxda inay soo xoojiso ciyaartoy khadka dhexe ka ciyaara waxaana hadda uga cadcad ciyaartoydaas ciyaartoyga Sergej Milinkovic-Savic balse waxaa jira ciyaartoy kale oo bedel u ah ciyaartoygaas haddii kooxda Arsenal ay ku fashilanto ciyaartoyga inay la soo wareegto waxaa jirta kooxda inay isku dayi doonto la soo wareegida ama la soo saxiixashada ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Belgium iyo sidoo kale kooxda Leicester City ee Tielemans ciyaartoygan Tielemans waa isku dayday kooxda Arsenal inay la soo wareegto bishii January balse kooxda waa ay ku fashilantay haddaba ciyaartoyga Tielemans ayaa waxa uu dhamaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda Leicester City dhamaadka xilli ciyaareedkan taasoo macnaheedu yahay in kooxda Arsenal hadda wada hadal la furto ciyaartoygan sidoo kale ciyaartoygan maadaama uu ku jiro 6 bilood ee ugu dambeeyay heshiiskiisa ay kooxda wada hadal la furi karto sidoo kale ciyaartoygan oo si xor ah ama si bilaash ah ugu soo biiri karayo kooxda Arsenal dhamaadka xilli ciyaareedkan haddaba kooxda Arsenal ayaa sanadii hore la soo wareegtay ciyaartoy ay kamid yihiin Jorginho sidoo kale kooxda waxay isku dayday inay la soo wareegto bishii January ee la soo dhaafay ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Aston Villa iyo xulka qaranka Brazil ee Douglas Luiz balse kooxda waa ay ku fashilantay oo hadda hadafka kooxdu waxa uu yahay inay la soo wareegto ciyaartoyga Sergej Milinkovic-Savic ee khadka dhexe uga ciyaara kooxda Lazio haddii ay kooxda ku fashilanto ciyaartoyga bedelka ayaa waxa uu yahay ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Leicester City ee Tielemans halka ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ee Gavi lala xiriiriyay kooxda Chelsea ciyaartoyga Gavi oo kamid ah daayirada ugu fiican khadka dhexe qaaradda Yurub sidoo kale ciyaartoygan oo kamid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Spain ayaa waxa la sheegay ciyaartoygan inay doonayso kooxda Chelsea inay la wareegto maadaama kooxda Barcelona ay ku fashilantay ama kooxda Barcelona ay ku adkaatay ciyaartoygan inay ka duwan galiso barta rasmiga ah ee La Liga haddaba ciyaartoygan Gavi ayaa waxa uu kamid yahay ciyaartoyda u ciyaara kooxda Barcelona sidoo kale kooxda Chelsea ayaa kamid ah ciyaartoygan kooxda isha ku haysa inkastoo marka hore ciyaartoyga Gavi la xiriiriyay kooxo kale oo ay kamid yihiin kooxda Bayern haddaba kadib markii ciyaartoygan kooxda Barcelona ay sheegtay inay si rasmi ah u diiwaan gelisay sidoo kale ciyaartoygan lambarkiisa ay bedeshay oo lambar 6 ka dhigtay ayaa waxaa soo baxay war sheegaya kooxda Barcelona inaan si rasmi ah u diiwaan gelin ciyaartoygan arrinkaas oo keenay ciyaartoygan in la bedelo lambarkiisii oo lagu celiyo lambarkiisii 30ka haddaba arrinkaasi waxa uu sheegayaa inaan horyaalka La Liga ama xiriirka kubadda cagta waddanka Spain aanay si rasmi ah u aqoonsanayn heshiiska cusub ee kooxda Barcelona ay la gashay ciyaartoyga Gavi haddaba iyadoo arrinkaas ka faa'iideysanaysa kooxda Chelsea ayaa waxaa la sheegay mas'uuliyiinta kooxda Chelsea in toddobaadkii la soo dhaafay ay magaalada Madrid kula kulmeen wakiilka ciyaartoyga Gavi xilligaas oo mas'uuliyiinta kooxda Chelsea ay wada hadal la wadeen tababarihii hore ee xulka qaranka Spain iyo sidoo kale kooxda Barcelona ee Luis Enrique waxaana la filayaa tababare Luis Enrique haddii uu si rasmi ah u noqdo tababaraha cusub ee kooxda Chelsea mustaqbalka ama kadib dhamaadka xilli ciyaareedkan inuu arrinkaasi keeni karayo ciyaartoyga Gavi inay la soo wareegto kooxda Chelsea maadaama ciyaartoygan oo tababare Gavi ku soo tababaray xulka qaranka Spain sidoo kale ciyaartoygan ayaa waxaa la sheegay ilaa hadda inaanay kooxda Barcelona si rasmi ah u diiwaan gelin ciyaartoygan arrinkaas oo keenaya ciyaartoygan inuu ku fikiro ka tagitaanka kooxda Barcelona dhinaca kale kadib markii kooxda PSG ay ku fashilantay inay la soo wareegto ciyaartoyda Camavinga iyo sidoo kale Tchouameni waxaa la sheegay madaxweynaha kooxda PSG Nasser Al-Khalifi inuu doonayo inuu bedelo mashruuca kooxda PSG sidii uu la soo wareegi lahaa ciyaartoy u ciyaara ama ciyaartoy ka soo jeeda waddanka Faransiiska haddaba kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay uu jiray khilaaf u dhexeeyay ciyaartoyga Kylian Mbappe iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kooxda PSG waxaa la sheegay madaxweynaha kooxda PSG Nasser Al-Khalifi inuu dib u eegid ku sameeyay mashruuca kooxda PSG sidoo kale uu awoodda saari doono dhammaan ciyaartoyda ay la soo wareegi doonto kooxda PSG ama ciyaartoyda ay la soo wareegi doonto kooxda PSG in badankooda ay noqon doonaan ciyaartoy ka soo jeeda waddanka Faransiiska haddaba waxaa jira in ciyaartoy badan lala xiriiriyay kooxda PSG sidoo kale sida uu sheegay madaxweynaha kooxda PSG Nasser Al-Khalifi waxaa jira ciyaartoy badan oo u dhashay waddanka Faransiiska kuwaasoo ay isha ku hayso kooxda PSG waxaana ka mid ah ciyaartoyga khadka weerarka uga ciyaara kooxda Bayern ee Kingsley Coman ciyaartoyga khadka weerarka uga ciyaara kooxda RB Leipzig ee Christopher Nkunku iyo ciyaartoyga isuna khadka weerarka uga ciyaara Bayer Leverkusen ee Diaby
sidoo kale waxaa jira in sanadada ugu dambeeyay kooxda PSG ay hoos u dhac ku yimaadeen ciyaartooyda u ciyaara ama ciyaartooyda kasoo jeeda wadanka Faransiiska. haddaba kooxda PSG maadaama ilaa hadda aanay war rasmi ah kasoo saarin heshiisyada ciyaartooyga Sergio Ramos iyo sidoo kale Lionel Messi, labadan ciyaartooy oo dhammaan heshiiska uu kula jiro ama ay dhammaan heshiiska uu kula jiraan kooxda PSG dhamaadka xil ciyaareedkan, ayaan ilaa hadda mas'uuliyiinta kooxda PSG aan soo bandhigin wax heshiis kordhin ah ama si rasmi ah heshiis kordhin ugu sameyn. haddaba waxaa jira ciyaartooy badan oo lala xiriiriyay ama ay doonayso kooxda PSG inay la soo wareegto, kuwaasoo la filay inuu badankooda noqon doono ciyaartooy kasoo jeeda wadanka Faransiiska, waxaana ka mid ahaa ciyaartooyda aynu soo sheegnay ee ciyaartooyda u ciyaari jiray xulka qaranka Faransiiska ee kala ahaa ciyaartooyga Kingsley Coman, Christopher Nkunku iyo sidoo kale ciyaartooyga Diaby. sidoo kale waxaa jira ciyaartooy kale oo ay doonayso kooxda PSG inay la soo wareegto, waxaana ka mid ah weeraryahanka xulka qaranka Faransiiska ee Colomani una ciyaara kooxda Eintracht Frankfurt. ciyaartooygan oo awooday inuu dhaliyo kooxda Frankfurt xil ciyaareedkan 19 gool sidoo kale 14 caawimood. haddaba ciyaartooygan ayaa waxaa la sheegay kooxda inay isku day doonto inay la soo wareegto, inkastoo tababaraha kooxda PSG ee Galtier uu isagu doonaya inay kooxdu la soo wareegto ciyaartooyga khadka weerarka uga ciyaara kooxda Napoli ee Victor Osimhen, balse ciyaartooygan waxaa aad u sareyn doona qiimaha ay kula soo wareegi doonto oo aan ka yaraan doonin 80 milyan oo euro. haddaba mas'uuliyiinta kooxda PSG ayaa isku day doonta inay bedesho mustaqbalka kooxda oo ay awoodda saarto kooxda ciyaartooyda kasoo jeeda ama daayarka kasoo jeeda wadanka Faransiiska, kadib marka ay ku yaraadeen kooxda PSG saxiixyada ay samaysay sanadihii ugu dambeeyay ciyaartooyda kasoo jeeda ama ciyaartooyda u dhashay wadanka Faransiiska.